aad baan idin salaamay meel walba aad dunida ka joogteen. Today maanta waa maalin axad ah, suuqana waa soo jeedaan waa OTC. Waxaan galay maanta 5 trade. Soo jeedaan waxaan galay 5 trade. Marka asxaabta waxaan rabaa inaan 5 trade aan galay inaan idin sheego sababta aan mid waliba aan u galay. GBUSD lacagtan aan soo furano. Okay, soo jeedaan suuqa asxaabta halkan wuxuu ka yahay major downtrend ayuu halkan ka yahay suuqii. Halkanna wuxuu ka yahay minor uptrend. Soo jeedaan waxaynu dhiganay trend line ayaanu dhiganay. So halkan wuxuu ka noqday suuqii uptrend. Haddaba sababta aan u galno waxa weeye maadaama suuqa halkan uptrend ahaa minorkiisu, this is waa entry point bias ayaa kasoo galay halkaas falaarta ay suran tahay eega asxaabta halkaas bias ayaa kasoo galay level trend line halkan ayuu noo yaalay. So bias halkan kasoo galay waxay ahaayeen bias strong ah oo aad u xoog badan. New high-na upper new ayuu kor ku lahaa, new high ayuu lahaa. Kadib suuqii waxaan u sii raacay buy waana ku guuleystay suuqii. Marka waxaa keenaysa sababtan suuqa u galay halkan minor uptrend-ka mar walba asxaabta minor trend-ka waa la raacaa. Minor trend-ka suuqa laba jihooyin midka marble minor-ka ah ayaa suuqa la raacaa oo lagu ganacsadaa. Haddaba ani marka maadaama halkan minorkii waa uptrend halkan aan dhiganay trend line-ka oo si level-ka oo kala trend line-ka iyo levels-ka waa not different, wax farqi ah u dhexeeya ma jirto. Marka halkan waxaynu dhignay marka level-kii trend line-ka. Halkan waxaa u jeedaa in bias-kii kasoo galeen suuqa uptrend buu ahaa, wuu kacay, haddana bias-kan kasoo galay, haddana wuu kacay, soo laabtay, haddana halkan bias kasoo galay. So bias-ka soo galay waxay noo ahay haddana waa support area ay noo yihiin. So bias-ka support-ka kasoo galay waa mid aad u xoog badan strong ah. Sidaas awgeed waxaan u sii raacnay suuqii buy aan ku guuleysanay. Suuqa oo jeedaa inuu haddana sii socday buy-giisa uu ku sii socday. GBUSD haddana mar kale soo jeedaan suuqii marka hore halkaa flat saaran aan ka galnay oo candle-ka yar buy-ka ayaan ku guuleysanay spinning-kaas. Suuqii wuxuu ku sii socday buy, haddana wuu soo laabtay suuqii. Suuqii markuu soo laabtay waxaan u raacnay suuqii haddana sell ayaan u raacnay sababtoo ah halkan level ah. Halkan waa level aan dhigano intusno horizontal line aan dhigano. This is waxa weeyaan waa level u jeedaan this halka waa level. So marka maadaama halka level yahay strong cells ayna kasoo galeen halkan level-kii cell aad u xoog badan uu kasoo galay suuqii. Haddana waxaan soo raacay sell waana ku guuleystay asxaabta. Okay, GBUSD suuqa saddexaad ayaan ku guuleystay isla lacagtii maadaama candle-kii aynu markii hore ku guuleysanay. Haddana halkan wuxuu inoo yimaadeen suuqii halkan gaab yar baa jira oo jeedaan falaarta gaabka yar ayaa waxaan u raacay suuqii haddana sell waxaana ku guuleystay rejection-kaas ayaa u jeedaan ayaana ku guuleystay lacagtii.
halkaas ayaa nooga faa'iidaystay rejectionka maadaama halkan gaab yar uu dhaxeeyo sellskan halkan ay xog badan yihiin strong yihiin sida rejectionkii sell ayaan ugu soo galay waana ku faa'iiday asxaabta isla haddana waxay ii tagay entry pointigii oo trend line-ki ii yaalay iyo haddana ku laabtay suuqii haddana sidoo kale suuqii afaraad EB isla USD weeyaan sidoo kale trend line-kii oo inoo jeedaa haddana suuqii halkan waxaa kasoo galay also bias maadaama suuqan uu yahay halkan minor uptrend biaskii maadaama uu halkan trend line-kii uu gaaray suuqii haddana uu halkan reversal signs-kii uuna tusiyey oo ah inverted hammer soo suuqii buy ayuu toos usii aaday oo haddana buy ayuu ku socday soo haddana waxaan usii raacay suuqii buy ayaan usii raacay levels this is also halkan wuxuu ahaa level also halkan is the level level ayaa noo yaalay sababta markaan usii raacay waxaa weeyaan bullish aan dhahay bullish momentumskan ayaa halkan ujeednaa also this waxaa ujeedaa halkan strong bias ayaa kasoo galay suuqii halkan also bias marka continuation sign bay markaan cadeynayaan suuqii waxaan usii raacay haddana buy waana ku guuleystay asxaabta suuqa ugu dambeeya GB USD sidoo kale trend line-kiisana ujeeda waan suuqii isla main uptrend-kii kusii socday halkan suuqii ka laabtay mar kale biaskii ayaa bilowday marka halkan level ayaynu dhiganay markaan ku talagelinayna ujeedaan halkaas waa level flattaas meesha saaran waa level halka waxaynu ahaa marka asxaabta halkan saan ujeedo level baynu ahayd sumaha level baynu dhignay waxaana kasoo galay bias xoog badan suuqna wuxuu ahaa minor uptrend biaska strongiga waxaan usii raacnay haddana suuqii buy oon ku guuleysanay aad baan salaamaya dhammaantiin asxaabta asalaamu calaykum waraxmatullah